xaqiiqdii maandooriyaasha laga isticmaala geygeena dhalinyarada boqolkiiba 80 ay ku waxyeeloobeen. waxyaabo ugu waaweyn waxaa weeyaan waxaa ka mid ah bahalkan hadda loo yaqaano taabuuga, oo inta badan suntiisa cid kasta aysan dareemi karin, sidii sigaarkii iyo waxyaabihii kaleetana aysan dadka ka muuqanaynin. dhalinyarada inta ugu badan weliba bahda waxbarashada gabar iyo wiilba lagu eedeeyay laguna arkay. cilmi baarista aan samaynayna iyo observationo kale aan samaynayna aan ku dhex aragnay jaamacada, qaarkood anaga aan ka shaqayna, qaarkoodna aanan ka shaqaynan ku dhex aragnay. marka waxaan isleeyahay ka numberka ugu badan ee dhalinyarada isticmaasha waxa weeyaan waxa loo yaqaano taabuuga. maalmahan dambeetana waxaa nagu soo korodhay cirbado kaleeto la isticmaala, dadka aada u isticmaalaan, loo yaqaano sidii tramadolka iyo cirbado kaleeto oo ayana markii horeeta oo for medicine purpose loogu talagalayo isbitaalada iyo hay-adaha kaleeto caafimaadka, dadka ama surgeryga iyo qaliinada lagu sameyn loo isticmaali jiray, oo hadda dhalinyaradii amoodad inay wadooyinka qaarkood ay ku isticmaalayaan, qaarkoodna meelo kaleeta si dhuumaaleysi ugu isticmaalayaan. marka labadaas number ayaa ugu waaweyn. xog baaristaada ama cilmi baaristaada sideed u samaysay, halkeed si ka samaysay? inta badan aniga waxaan ka howlgalnaa shaksi ahaan macalinan ka ahay, wixii cilmi baaris ama brogaraamo kaleeta ahna inta badan ka sameeya waa caasimada dalka muqdisho. inta badanna marka si kooban markaan ugu jawaabo waxaa weeyaan gobolada dalka iyo meelaha maanan geynin, sababtoo ah inta ugu badan marka laga hadlayo cuduradan hadda dhalinyaradeni micnaha ku faafsano oo isticmaalka mukhaadaraadkan noocyadiisa kala duwan ah, guud ahaan meesha ugu badan boqolkiiba 80 iyo ama 70 iyo dhowr la dhihi karo waa caasimadii. saas darteed marka cilmi baaristii iyo waxyaabihii aan sameeyey oo weliba si shaksi aan u sameeyey waxaa weeyaan waxay ku aadineed gobolka banaadir ee caasimada dalka ummadda soomaaliyeed muqdisho. marka qaabkaad u sameynaysana sideed ku ururinaysa xogta? dabcan xogta waxay leedahay siyaabo kala duwan oo loo hagaajiye. inta badan marka researchka noocaas la sameynaya waxyaabaha ugu fudud oo waxaa weeyaan in dadka interview lala yeesha waqti ay qaadanaysa ama wareysi lala yeesha waqti ay qaadanaysa, laakiin waxyaabaha ugu badan oo aan sameynin waxay observation inaan sameyno, evidenceskina aan ururino. qaarkoodna aniga waaqicii aan taagneynay ayayba qeyb ka aheyd oo aan la kulanay. marka inta badanba waxyaabaha aan sameyn wuxuu ahaa observationna ukuurgalid iyo noocaas ahayd. cilmi baarista inta badan aan sameyneynay. maxaa kugu xambaaray marka inaad xogtaas u kala qaadato? xaqiiqdii waad dareemi kartaa, aniga wadanka gudihiisna wax baan kusoo bartay, wadanka dibadiisna wax baan kusoo bartay. waana dareemeysaa marka qof xaqiiqdii dhalinyaro ah mujtamacii filinaya oo isticmaalaya drugska noocaas ah. aniga markii horeeta micnaha xog badan kamaanan haynin, laakiin waxaan la kulmay dhowr jaamacadood oo aniga aan wax ka dhigaya, ayaa waxaan arkay ardaydii in maraha qaar ay ku liidata, hoos ula hadal badan iyo meelo badanna markaan arkay ardaydii muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaan inay ka duwan yihiin waxaa ogaaday ardayda kaleeta. kadibna waxaa ii soo baxday in wax un jira ku xambaaray ardaydan inay liitaan, xab dhaqankooda inuu liita, hab waxbarashadooda inuu liita, hab fikirkooda inuu liita. kadib markii aan baaristii arrimihii aan guda galin, dad badan iga saaciiday, khayr allaha siiyo, oo halkan kusoo koobi karin, waxaa ii soo baxday marka inay tahay wax in laga dhiidhiyo ay tahay. aniga keligeyna ma ahe, waxaa jira dadyow kaleeta oo qaarkood professors ah, qaarkood dhalinyaro isxilqaanti ah, wacyigelina sameeya, xitaa maamulka gobolka oo kaleeta iyo hay-adaha gobolka banaadir qaarkooda in badan micnaha ka hadlay oo barnaamijka wax badan ka dhahay. marka aniga waxyaabaha igu xambaaray waxaa weeyaan ka shaksi ahaan waxaa weeyaan waxaan ahay qof mujtamacii wax u bartay, mujtamacii ku dhex nool, mujtamacii wax baraya, dhalinyaro ah. marka waa ii cuntam weysay in micnaha cudurkan inuu nagu dhex faafay inaa shib ka dhahwa iyo cuntam weysay inaa wax ka qoro oo wax ka hadlo. saas ayaa igu kaliftay inta badan. marka intii aad goobaha waxbarashada tegaysay eed xogtan aruurinaysay, wax arday ah oo aad ogaatay inay qabatameen maandooriyaasha kadibna ay ka hareen waxbarashada? wallaahi ma dhahaayo hadda heblo amba hebel waa ma dhahaayo, laakiin waxaa jira arday
micnihii aad ka dareemaysaba ka dhex akrinaysa ayaga laftirkooda xitaa mararka qaar dareemaya waxaana inay yihiin wax xun laakiin ay la qabatimeen oo cudurkii micnihii iyo isticmaalkii wixii arkaysa marka qaar adigoo amba galaaskii ku jira amba adigoo jooga meel mujtamacii isugu imaaday aa arkaysid in micnihii hadba qof dhuumanayo oo wixii inuu use gareeta wixiina ma aha wax markaa muuqdo ma aha wax yaroo baaketkii dhowr iyo tobanka xabo ku jirtaba jeebka lasoo gashan karo waaye mana raba markaa inaa si shaksi ama qof shaksi ah tilmaamo laakiin waxaan is leeyahay dhalinyarada boqolkiiba 80 cudurkaasi waxa weeyaan wuu gaaray aad iyo aad wallaahi suuragal ma tahay in dad ugu hareen waxbarashada su-aashaasoo kala laabada lahaynin waa haa dad badana ugu haray sababtoo ah qofkii habeenkii idil waxa weeyaan wuxuu ku mashquulsan yahay isticmaalka aaladahan iyo waxyaabo kaleeto social mediaha iyo ama maandooriye kaleeto marka subaxii qofkii maba awoodaba micnihii in uu qaata daraasadii iyo waxbarashadii iyo xaadiritaankii wixii dhan inuu qaata maba awoodo saas darteeda waxyaabaha aan horey uga hadalnay wuxuu ahaa isticmaalka taabuuga iyo waxyaabahan kale daraagiska ah waxay la dagaalamaanba habfikirka qofka waxay la dagaalamaan micnihii qofkii inuu micnaha feejignaantiisii iyo caqliyadiisii saxda ahayd ayay la dagaalamaan marka qofkii habdhaqankiisa wuu khaldanaanaya habfikirkiisa wuu khaldanaanaya wax badan ay waxaa arkaysaa qofkii inay micnihii ka lunsan yihiin oo markii goobaha waxbarashada inuu imaado markaas waxaa keenaysa goobihii waxbarashada qaarkood musqulahoodii ama meelihii weyseqaadka ama meelihii xitaa in lagu cibaadeysta loogu talagaliyo iskuulka amba jaamacaddii ay u samaysneed in lagu dhex arkayo baakadaha qaar amba qof bahalkii inuu isticmaalo in lagu dhex arkayo way jiraan shakhsiyaad kooban oo la baqaaya laakiin mahrado waaweyn oo magaalada ku dhex furno sandaqada ah oo laamiyada ku yaala ay lagu iibiyaa ciddii tagdana waa baakadaheeda meeshay wada suran yihiinba wax oo la qarinaya malaha maybe laga yaaba in qof ama laba qofood inay wax hoos u qarisa laakiin inta badanba magaalado idil waxa weeyaan waa shaacsan tahay dhinaca kaleetan isticmaalkeeda in la isticmaalana dhalinyarada laba ayadan loo kala qaadaya qaar waxaa jira la gabanaya oo qarinaya oo weliba dadka hadda waxbarashadii iyo waalidkii daba taagan yahay oo lagu riixayo in wax bartaan amba lagu qeylinayo qaarkood way la dhuumanayaan laakiin meelaha qaar waxaa ku arkaysaa suuqyada dad inay soo qaateen cirbadihii gacanta ku wata iyo butterflygii ama bahashii lagu isticmaalayay wata ama wadooyinka dhinaceeda la taagan amba wadada dhexdeeda ku suuxsan oo waxaa arkaysaa bahashin agtaala amba meel walba waxa weeyaan ayuu ku isticmaalaya ayaa arkaysaa inta badan imtixaan ayaa la qaaday gobolka banaadir waxa uu ahaa ka ardayda ugu badan ay ka dhaceen bal isticmaalka waxyaabahan maandooriyaasha ah saameyn ma ku yeelan karaan in tiro intaa la eg oo arday ah ay dhacaan waxaan is leeyahay faktaro badan ayaa jira amba arrimo badan ayaa jira u sabab ah inay arday intaas in la eg ay dhacda tusaale ahaan gobolka banaadir dadka ugu badan ee imtixaanka galay ay 26,000 in ku dhow ayaa gashay marka sidaas qayb ka mid ah maadaama dadkii ugu badnaa imtixaanka meesha ay ka galan tahay dadkii ugu badnaa ay dhacaan in laga helo laakiin faktaro kale taa jira oo social media ka mid yahay oo dhafarka habeenkii ilmihii waxa ka mid yahay laakiin waa qayb ka mid ah weliba qayb micnaha mustaqbalka ilmahaasi dib micnaha dib hataa micnaha kasii dhibi doonta ah waxaa ka mid ah marka culeysyadaas waxaa ka mid ah isticmaalka ardayda qaar ka mid ah maandooriyaasha hadda aan soo sheegnay isticmaalaan khayr allahasi waxaa jira iskuulo iyo maamulayaal inta badanba la dagaalama oo ardaygii noocaas ah ama lagu arkaa inta badan ciqaaba ama ceyriya laakiin iskuuladoo dhan sidaa ma aha waxaa jira iskuulo badan amba taabuha isticmaala amba wax kale ha isticmaala micnaha mar walba eegta incomeka ardaygaasi soo gelinaya ama dhaqaalaha ardaygaasi soo gelinaya bis eegta ayaa jira marka waa qayb ka mid ah sababaha ardayda tirada badan 4,000 iyo ka xagga gaaraysa ay u dhaceen waa qayb ka mid ah isticmaalka maandooriyaasha hadda aan soo sheegnay isticmaalan ardaydaasi qayb ka mid ay noqonaysaa marka aan fiirin xalka mushkiladan ardayda wax baranaysa haysta maxaa xal noqon karaa horta xalka wuu fudud yahay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu naga dhigay dad muslimiin ah waxaa jira
dadkeena inta badan Soomaalida ama gobolka Banaadir marka la dhahana waxaa arkaysaa isku xirnaantii ayaa in badan yar. laakiin haddii isku xirnaasho laga hela maamulka iskuulka ama maamulka jaamacadda iyo waalidka ardayga dhalay, wax badan oo xog ah ayaa inta badanba laga heli lahaa. kadibna ardaygaasi hadduu qof waana iyo caqli celin u qalma yahayna waa loo caqli celin lahaa. hadduusan ahaaninna waxaa jira xarumo iyo hay-ado u taagan oo qofkaasi dhaqan celintiisii iyo waxyaabaha. marka isku xirnaanshahaas aa jirin. sidoo kaleeta marka guud ahaan wacyiga guud ee wadanka la eegana ayadana qeyb ay ka tahay. khayr alaasi gobolka Banaadir iyo maamulkiisa wax badan way ka hadlaan oo way qabtaan oo howlo badan soo saaraan. laakiin waxaan isleeyahay mas-uuliyadaasi way ka culus tahay, wayna ka ballaaran tahay. waa in la helaa dadka xaafadda degan, waalidka leh, culummada leh, macalimiinta leh, dhalinyarada leh, in micnaha wacyigelin guud ay markaa ay sameeyaan. sababtoo ah ardaygan hadduu bahalkaas isticmaalin xitaa wuxuu arkayaa qof kaleeto oo isticmaalay. maxaa yeele hadda inta ugu badan wadooyinka ku isticmaala xirkaha ku wata cirbadaha iyo sidii isla dhacaya ma aha in badan dad academic ah oo waxbarashadii ku jira ama wax soo bartay ma aha. laakiin haddii dadkaas aan laga wacyigelinin, aan laga qabanin, aan lagala hadlin, waxa weeyaan kii wax baranayay birita marka wuu ku daysanaya oo wuxuu arkayaa qof saaxiibkiis ah oo sidaa ah oo waxaa wada. oo inta badan ama dhalinyarada bajaajka wada ama dhalinyarada meelaha inta badan waa dad badan oo wanaagsan ku jira, dad badan isticmaalana ku jiraan. marka kan xun haddii la qabta kan wanaagsan wuu sii wanaagsanaa, laakiin kan xun haddii aan la qabanin kan wanaagsanaa xitaa wuu ku dayanaya. marka dhexdeena lagu dhex iibiyaa ilmaheena qaarkood iyo dhalinyaradeen kuwa anaga nala dhashay in laga wacyigeliyo qaarkood way iibiyaan sandaqadihii meesha lagu haya. marka maamul ahaan iyo culimo ahaan iyo aqoon-yahan ahaan iyo ururo bulsho ahaan intaba in loo istaago joojinta iyo xakameynta iyo wacyigelinta arrimahaas aad iyo aad xal u ah isleeyahay.